waxaa laga yaabaa in qof aad walaalo tihiin ama ehel tihiin inaad isku wereertaan adigoo mar walba ugu jawaabayo war aniga fariinti maan helin fariinti maadan iisoo dirin iyo wax la mida. haddana waxaa laga yaabaa in dokumentiyaal fara badan oo laguu soo diri lahaa ay kaa wecdaan ama ay ku imaan waayaan adoo isdhahaya waxbaa la qalday ama emailkii baa la qalday, haddana emailkii lama qaldina waa sax. ma ogtahay in haddaad qof fariin kuu soo diray aad furto, maalanba fariintaasoo kale haddaan furno oo aad unsafe dhahdid, fariintan waa safe, hadda waa caadi. fariintan marka ugu horeysa haddii aan idhaahdo unsafe, aan u sheego hotmailka mark as phishing scam and waa fariin dad lagu dhacayo iyo wax la mid a, ma ogtahay in hotmailka uu balog saarayo si dhaqsa ahba. baloggaasna wuxuu wax u dhimayaa fariimihii lagu soo diri lahaa mooye qofkaas waxba uma dhimayo. fariintii qofka uu kuu soo diri lahaa baa halkaas ku dhumaysa, fariin dambe oo kuu imaan kartaa ma laha, sababtoo ah balog baad saartay adigoo aan ogeyn. adoon ogeyn waxaad taabatay mark as phishing ama mark as unsafe iyo wixii la mid a. haddaba fariimaha ka midka ah junkmail ama fariimaha ku yimaada junkmail markii aad furtid, hadda wax fariin ay yaala ma lahan, tusaale ku qaadano. haddii fariin ay junkmail kaaga jirto oo aad adiga unsafe aad tiraahdid, hal fariin ayaan geenaynaa junkmail si aan tusaale ugu qaadano. fariin ku jirta junkmailkaaga ama inboxkaaga kan ku xiga junkmailka loo yaqaano, haddaad jeeg saartid oo aad tirahdid mark as phishing scam ama aad gudaha u gashid oo aad tirahdid unsafe, hotmailku wuxuu leeyahay badanaa unsafe. fariintan waa fariin aanan laysku hubin ama fariin halis khatar gelin karta fariimaha kale ama wax account iyo wax la mid a. haddii ay sidaa tahayna ciwaankii fariintaas soo diray baa blog automatically la saaraya. haddaba si aad taas ku ogaatid inay dhacday iyo in kale, waxaad aadaa options adigoo ka qaadaya qaybta hoose sii aadaya more options markaad taabatay ogow qaybta geeska ama dhinaca gacantaada midig markaad kor u eegtid meesha laga baxayo sign outka ee geeska meesha xirista hoosteeda waa sign out, waxaa ku xiga options. markaad taabato options waxaad kasii aadaysaa qaybta u hooseysa ee more optionskaas ayaa waxaa kasii xulanaysaa junk email, fariimaha aan loo baahnayn adiga iska socda, fariimahaas ha soctada ah. waxaad kasii aadaysaa safe and blocked senders, dadka wax soo dira ee okeyda ah iyo dadka wax kuu soo dira ee aad blogga saaraysid intaba hal meel bay ku wada jiraan, haddana way sii kala qaybsamayaan. blocked senders waxaa halkan ka muuqda safe senders, safe mailing lists iyo blocked senders. waxaad kasii aadaa halkaas blocked senders. waxaa halkan ku xusan aniga wax blog iga saaran ma lahan, fariimihii la iisoo dira toos bay igu imaanayaan. haddii halkan sidan tahay, fariintii laguu soo dira ma baaqan karto, inay si kale ku baaqato mooye ama ciwaankaaga la qaldo mooye fariinta si toos inay kugu imaato ayay u badanta. laakiin haddii halkan aad ku qorto ciwaanka qofka ciwaankiisa ama qofkaadan rabin ciwaankiisa oo aad tiraahda hebel @hotmail.com oo aad to list tiraahda, qofkaas ugu fariin uu kuu soo diri kara ma laha, sababtoo ah blog baa saartay. haddii uu halkan qof yaallo ciwaankiisa oo blog saartayna, qof aad blog hore u saartay haddii ciwaankiisa halkan uu yaallo, xulo kadibna remove from list wuuna ka saarmaya qofkaas. fariintii haddii kadib uu kuu soo dirana si toos ayay kuu soo gaaraysaa. halkan waxaan ku fahmi karnaa in fariinta laguu soo diray ee kusoo gaari la ayaan ahayn cillad kale ee cilladaha ay taas u badan tahay.